ma isleedahay madaxweyne ayaa lacag dhan $1 milyan dhar uga tashay harqaan ama dawaarle xilli dadkiisu 40% ay ku nool yihiin nolol ka hooseysa diirinta fakhriga ee poverty line-ka la yiraahdo. Artaano ay kol hore samaysay warbaahinta Faransiiska ee la yiraahdo Mediapart ayaa waxay ku ogaatay in madaxweynaha dalka Chad ama af Carabi ahaan sida loogu dhawaaqo Tashad oo dal yar oo Afrikaana laakiin afka Carabiga ay dadkiisu ku hadlaan waa madaxweyne Maxamed Idris Deby in qarash ka badan 900,000 euro oo lacag ka badan $1 milyan uu ku bixiyay iibsashada suudad, shaatiyo iyo dhar qaali ah dukaan ama harqaan ku yaala gudaha Faransiiska. Lacagahaasi waxaa la sheegay in la dhexmarsiiyay shirkad qarsoodi ah oo lagu magacaabo MHK Full Business oo ka diiwaan gashan magaalada N'Djamena isla markaana leh akoon bangi oo ka furnaa Banque Commerciale du Chari, bangiga ganacsiga ee Chari. Arrinkaas ayaa sidoo kale xabaaritaan hordhaca ku bilaabay xafiiska dacwad oogaha maaliyadda Faransiiska ee la yiraahdo Parquet Financier National. Eedaha la baaraya waxaa ka mid ah lunshashada hanti dadweyne iyo qarinta lacaga dadweyne oo dalka Faransiiska banaankiisa ka yimid. Liiska ay diyaarisay Mediapart wuxuu muujinayaa kharashaadkan aadka u badan in lacag ahaan ay u qaybsan tahay sidan soo socota: 57 suud oo midkiiba qiimihiisa u dhaxeeyo 9,000 ilaa 13,000 euro, 100 shaati oo midkiiba uu yahay 800 euro, iyo 9 dhar oo nooca loo yaqaano saharaanka ah oo midkiiba uu yahay 7,500 euro. Faransiiska ayaa horey ka guda galay baaritaano ku saabsan lunsashada iyo qarinta hantida dadweynaha. Sida ay sheegayaan warbaahinta Faransiiska, baaritaanku wuxuu sidoo kale ku fidi karaa guryaha iyo hantida Faransiiska ay ku leeyihiin qoyska Deby iyo dadka ku dhow. buug xasuus qoraa uu dhowaan daawacay madaxweyne Maxamed Idris Deby wuxuu kaga hadlay arrintan isaga oo ku tilmaamay tusaale muujinaya sida siyaasadda loogu sameeyo marin habaabinta. Wuxuu sheegay in arrintan la sameeyay oo uu hindisay nin la yiraahdo Abakar Maneni oo ahaa la taliyihii hore ee arrimaha madaxtooyada isla markaana wasiir dawladeed hore ka soo noqday dawladdiisa, isagoo sidoo kale ku tilmaamay wararkan arrinka ku saabsan buunbuunin warbaahineed oo aan macno badan lahayn.